gudoomiyaha guddiga arrimaha bulshada ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta warbaahinta u mariyay maayirka caasimadda Hargeysa oo Sootalka inuu ka dhaga adkaaday dhageysiga warbixinaha shaqada ee dawladda oo si caasimadda Hargeysa oo qabato bulshada waxaanu tilmaamay in maalinta Sabtida haddii uu soo xaadir waayo maayirka caasimadda Hargeysa golaha wakiilada Soomaaliland si looga dhageysto warbixino bilaabayaan sidii bulshada u iftimi lahaayeen meelaha qashi ku fariistay ee buuxdhaafiyay magaalada Hargeysa iyo laamiyada soo foodartay ee jabsan waa kan gudoomiyaha guddiga arrimaha bulshada Soomaaliland oo arrimahaas ka hadlayay iyo arrimo kale waxaan halkan maanta fariin uga dirayaa maayirka gobolka Maroodijeex gaar ahaan magaalada Hargeysa waxaan leeyahay 3 jeer ayay u yeedheen guddida joogtadii 3diiba u diiday anagu 2 jeer baan u yeedhnay 2dii jeer midna muhiiman waxaan leenahay maayir adeer waxaan nahay dadkii loo soo doortay inaanu ilaalino dalka oo aanu eegno wadooyinka oo aanu eegno meelaha xashiishada waxa weeye adeer waxaan ku leenahay waa inaad Sabtida haddaad ima weydid waxaanu tagaynaa oonu ka qabanaynaa meel kasta oo xashiish yaallo meel kasta oo wadooyinka go'an ayaanu tagaynaa waxaan leenahay warbixin inaad naga siisid ayaanu doonaynaa haddii Ilaahay yiraahdo Sabtida fariintaasi adaan ku soo dirayaa haddii aad ima weydid Sabtida degdeg baanu tagaynaa media oo dhan waanu kacaynaa mooshinkiina waanu keenaynaa haddii la yiraahdo kii lagu kala reebayay si uu noogu yimaado nin wanaagsan oo dalka iyo dadkaba wax u tara Koronto Space Channel Hargeysa